anagoo dhan waxaan leenahay hadaf, waxaan leenahay riyo aan rabno inaan rumayno, xaalado aan rajaynayno inay isbedelaan. laakiin mararka qaar markuu waqtiga gudbo, bilba bisha xiga, sanadba sanadka xiga, ma arkayno wax isbedel ah. way fududahay inaan tiiro dhigno, aan u fikirno inaysan macquul noo ahayn, aan istaahilin. anagoo dhan waa marnaa murugo, khasaaro, xanuun, tacsiyo. dhibaatada waa qayb ka mid ah nolosha. way fududahay inaan tiiro dhigno, aan xanaaqno, maxay aniga igu dhacaysaa, maxay aniga ii qabsatay. mararka qaar waxaan fiirnaa qaybo ka mid ah nolosheena aan fahmi karin. furaha waa hawsha aad qabato xilliga dhibaatada ayaana beddesho. wadna xanuun, khasaaro, geeri, murugo, xaalkay nooga imaadaan ma nooga tagaan. xilli walba oo dhibaato jirta, xitaa haddii aad dhibsanayso xilligaas, waxay kobcinaysaa qayb ka mid ah noloshaada oo kobcaya keliya xilliga dhibaatada. wayna gudbaysaa dhibaatada, waana ka baxaysaa, laakiin waa isbeddelaysaa. xilliyadaas dhibaatada, markaa ciriiri dareemayso, haddii aad khasaaro marayso ama xanuunku imtixaanan tahay, si fudud ayay kaaga awood badin kartaa. marka sida dhibaatadaas kuu beddelayso, adiga ayay ku qusaysaa. waxaad kala soo bixi kartaa xumaan, ama waxaad kala soo bixi kartaa wanaag. waxaad ka soo bixi kartaa adigoo isdhiibay oo riyadaada tuuray oo hadafkaaga lumiyey, ama waxaad kala soo bixi kartaa xamaasad, rabitaan holcaya, ku faraxsanaan fursadaha cusub rabbigaaga ku siiyey. waxaa laga yaabaa inaan dhibsado dhibaatada, laakiin ma ihi qof meelaha ku calaacalayo. waxaan leeyahay awooddeeda, waxaan ogahay inuu rabbi i gudbinayo. ha ka calaacalin dhibaatooyinkaaga. dhibaato la'aan ma yeelan kartid awood iyo sabar. mararka qaar dhibaatada annaga ayaan isu keennaa. waxaan qaadanaa go'aamo qaldan, waxaan galnaa xiriire aan ka fiirsan. haddana way xanuun badan tahay xilliga aan natiijada marayno. annagoo dhan dhibaato waa maraynaa. mid aan kula taliyo, ha gudbin keliya dhibaatadaada, ku kobci nafsadaada. dhibaatadaada waa fursad awooddaada, adkaysigaaga iyo sabarkaaga ku badiso. fursad aad ku kobciso shakhsiyaddaada, fursad aad ku yeelato kalsooni cusub. qof walba ayaa isdhiibi kara, qof walba ayaa u oggolaan kara inay ka awood badiso dhibaatada. laakiin ma taqaanaa waxa aad samaynayso? waxaad dhuminaysaa xanuunkaaga. natiijo la'aan ayaa dhibaatoonaysaa. xanuunkaas kuuma haayo si uu gadaal kuu celiyo, wuxuu kuu haayaa si uu kuu diyaariyo, kor kuuga qaado, kuu kobciyo. dhibaatooyinka waa imtixaan ka mid ah nolosha. jooji nafsadaada uga sheekaynayso inaadan xamili karin. daciif ma tihid, awooddeeda waa leedahay. xanuunkana wuu tegayaa, wuxuuna kuu reebayaa awood cusub. haddii aadan horay u arag, macnaheeda ma aha inaysan macquul ahayn. xilli walba waxaa jira awood isu dayaysa inay nagu celiso meesha aan joogno. nolosha waxay leedahay qaabab ay riyooyinkeena hoos uga riixayso. waxay ku duugmi karaan murugo ama qaladaad hore. waxaa jira riyooyin ku hoos duugan furiin iyo kala tegid. way fududahay inaan aqbalo xaaladdayda anigoo haysta awood ku duugan dhibaatooyinkayga hoostooda. maxaa xusuusataa? xanuun, dhibaato, wax walba oo halaabay. beddel maskaxdaada ee xasuuso riyadaada. waa maxay riyooyinka aad u oggolaatay in qalbigaaga qabri uga dhigto? xilliga aad aamintay inaad qaban karto hawl wanaagsan. xilliga aad aamintay inaad bilaabi karto ganacsi ama badeeco iibin karto. xilliga aad aamintay inaad balwad joojin karto. imise ayaa laga joogaa? meeqa dhibaato ayaa martay qaladkaaga ahayn? si fudud ayaa ugu qanci kartaa xaaladdaada, cid kuga cambaaraynaysana ma jirto. cadowgaaga wuxuu rabaa inuu kugu qalqaaliyo riyadaada iyo hadafkaaga inaad aasto, inaad u aragto inaysan kuu shaqayn doonin. ha aaminin beentooda. wakhtiga ma kuga dhammaanin si aad u gaarto heerka ilaahay kuga talagalay. haddii aad nooshahay, xilli walba aad xasuusato riyadaada, waxaad ka qaadaysaa carada. halkaa ku aastay ayaa ka soo saaraysaa. calaamadaha guulaystaha waa haddii xitaa wasaq iyo caro korto riyadiisa, ma u oggolaanayo inay aasto, ee wuu ka dulqaadayaa. horay ayuu uga soconayaa.
ma haysan lahayn wax kaa hor imaada haddii aadan qaban howl ahmiyad leh. haddii riyadaada iyo hadafkaaga aadan ku guulaysan sanadka hore 5 sano ka hor 20 sano ka hor ma kuu shaqayn cid kuuga caawisa ma helin u laabo mar labaad ee sameey. middan waa wakhtigaaga, middan waa xaaladaada, middan waa xilligaaga. mustaqbalkaagana wuu kuu yeerayaa. mid aan kuu sheego, riyadaada ma dhiman ee wakhtigeeda ayaa wax ka dhiman. wakhtigaaga waa la gaarayaa, mustaqbalkaaga waa gaaraysaa, hadafkaaga waa helaysaa, nolosha aarabtu waa noolaanaysaa, wanaag wuu imaanayaa. go'aanno aa ku taagneed, riyooyin ilaahay kuu rumeeyey. la'aan ma aha noloshaada iyo dhibaato joogto ah. rafaad maalmeed ma aha sheekadaada. dhibaatada waa muddo gaaban, guulna waa nolosha. waxaa jira riyooyin qalbigaaga dhex holcayo. sida dabka waa dareemi kartaa guushaada kuu yeerayso. laga yaabo marka koowaad inaysan kuu hagaagin, dhib ma laha. weli waa riyadaada. middan waa wakhtigaaga, middan waa xaaladaada, middan waa xilligaaga. ka cuudubilaysa shayddaanka. jooji fikradaha xun maskaxdaada galaya. waxaad joogtaa heerka uga wanaagsan aad joogi karto. waxaad joogtaa xilliga uga wanaagsan aad joogi karto. waxa keliya kuu harsan waa inaad maskaxdaada u isticmaasho qaabka uga wanaagsan aad u isticmaali karto. waxaan aaminsanahay middan waa sanadkayga aan ku dadaalayo caafimaadkayga. middan waa sanadkayga aan la kulmo dad wanaagsan. middan waa sanadkayga aan kobciyo noloshayda si aan u gaaro guul cusub noloshayda. middan waa sanadkayga aan rumeeyo riyooyinkayga. middan waa sanadkaaga shayddaankaaga ka guulayso. middan waa sanadkaaga aa isu beddeli lahayd, aa isu hagaajin lahayd, aa howl wanaagsan u qaban lahayd. sanad cusub, bilow cusub, ku bilow sanadkaaga maskax wanaagsan.